bari hore waxaa jiray nin la yiraahdo Amjad. waxa uu ahaa nin beeraley ah, waxa uuna beeran jiray qudaarta noocyadeeda kala duwan. waxaa jiray bakaylo cuni jiray qudaarta hameen waliba. Amjad waxa uu ku waabariisan jiray qudaartiisa oo la kharribay. aad ayuu u xanaaqay. habeenada ka mid ah waxa uu go'aansaday inuu xayawaankan ugu dhigo dabin. si xayawaankan uu ugu dhaco dabinka, waxa uu dhigay meel munaasib ah. sidii caadada ahayd, bakaylihii waxa uu soo aaday si uu u cuno qudaartii uu u bartay. si lama filaan ah waxa uu ku dhacay dabinkii. bakaylihii waxa uu isku dayay si walba uu uga baxsan karo dabinka, hase yeeshee waa uu ka baxsan waayey. waxaa dhan walba ka soo weeraray cabsidii. aad ayuu u cabsanayay ilaa waaga uu ka baryo. markii uu waaga baryay, waxaa ku soo kallahay beerta Amjad. nasiib wanaag waxa uu arkay dabinkii oo xayawaan uu ku dhacay, waxa uuna ahaa bakayle. Amjad waxa uu ku yidhi bakaylihii, waxaa tahay xayawaankii qudaarta iga dhameeyey. maanta waxaa laga maarmaan ah inaan kuu dhigo cashir aadan weligaa ilaabin. Amjad waa uu ku kalsoonaan waayey ulaha agagaarkiisa yaallo. waxa uu aaday halkaa iyo gurigiisa si uu u soo qaato ushiisii weynayd. bakaylihii waxaa ku sii ziyaaday cabsidii. waxa uuna waayey si uu uga baxsado. si lama filaan ah waxaa soo agmaray dawaco. waa uuna u yeeray. waxa uu ku yidhi, dawacoy kaalay. dawacadii waxay tidhi, yaa halkaan ku fariisiiyey xariggana kugu xiray. bakaylihii waa uu qoslay. waxa uuna ku yidhi, sheekadan waxay igu dhacday saaka. waxaa iga xanuunsanaa ilmahayga. waxaan u soo doontay daawo. waxaan ku kulannay waddada saaxiibkay Didiin. waxa uu igu casuumay xaflad aroos, hase yeeshee waan ka cudurdaartay. isagana igama uusan yeelin cudurdaarkayga. waxa uu iigu xiray xariggan si aan uga soo qayb galo xafladda arooska. wuxuu ii soo diri doonaa wiilkiisa si uu ii geeyo goobta xafladda ay ka dhacayso. hase yeeshee anigu ma doonayo inaan ka qayb galo xafladdaas. dawacoy, ma doonaysaa inaad beddesho booskayga? dawacadii waxay tidhi, haa, waan doonayaa inaan beddelo booskaada. bakaylihii waxa uu yidhi, hal mar iga fur xarigga aad geshid booskaygee. dawacadii waa ay ka furtay xarigga bakaylaha, waxayna gashay booskiisii. markii laga furay xarigga bakaylaha, waa uu iskaga tegay goobtii. wax yar kadib waxaa goobta imaaday Amjad oo ushiisii weynayd soo qaatay, wejigiisana ay ka muuqato caro aad u daran. waxa uu arkay bakaylihii oo goobta joogin, hase yeeshee booskiisa ay joogto dawaco. aad ayuu u xanaaqay. waxa uuna ku furtay ceelkii uu bakaylaha u qabay dawacada. dawacada iyo bakaylaha waxay ka mid yihiin xayawaanada ugu caqliga badan. bal aan ku weydiiyey, dawacada iyo bakaylaha keebaa caqli badan? su'aashaas jawaabteeda kommentiga noogu reeba. halkan waa Hillaac Production. waxaan kugu soo gudbin doonaa sheekooyin dhiirigelin ah. haddii aad ku cusub tahay, ku soo biir. ha iloobin inaad saarto muuqaalka like lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid.